وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الله سبحانه وتعالى بين أمهد علينا inoo sahlay oo inoo fududeeyay oo ina soo waafajiyay kulamadan khayrka badan ee la isugu imanayo. ilaahay baynu uga mahad celinayna. kalmadaydu waxay ku saabsan tahay الضعف البشري أنواعه أسبابه وعلاجه. بني آدم كونه ضعيف يضعفه halka uu ka imanayo iyo sababaha keena inuu daciifo iyo sidee buu awood ku yeelanaya oo dacfiga uga baxaya. waa mowduuc ka hadlaya xaqiiqadeena. way adag tahay qofku inuu isku sheego inuu daciif yahay, inuu taagdaray dacfiga. marka aayaadka quraanka la eego kalimatu dhaf meelo badan bay ku timi. macnayaashay xambaarsan tahay waxay isugu soo biyashubanaysaa alxaaja walqilla waldilla walnaqs walcajz. inuu yahay qof baahan, qof tayayar, tiradiisu yar tahay, dullaysan, aan awood lahayn oo taag aanu ahayn, waxyaabo badan oo u baahan yahay, ku tilmaaman nuqsaan. macnayaashaasoo isu tagaya kuwa la mida ayaa looga jeedaa daciifnimada. alla subxaanahu wa tacaala 3 aayadood ayuu si cad ugu sheegay inaynu waxa weeye ducafo nahay oo dadku ducafaa yihiin. waxaa ka mida qowlu llahi caza wajal wakhuliqa alinsaanu daciifa. insaanka waxaa la abuuray isagoo daciifa oo taag daran buu alla subxaanahu wa tacaala abuuray. al'aana khafafa allahu cankum wacalima ana fiikum dacfa. alla subxaanahu wa tacaala waa idin khafiifiyey, wuxuuna ogaaday inaad dacafo tihiin. waxaa la tilmaamay oo alla subxaanahu wa tacaala uu tilmaamaya insaanku inuu ka samaysan yahay oo xaqiiqadiisu ay tahay inuu daciif yahay. waxaa laga yaabaa in la isweydiiyo, ilaahay waa awood badan yahay, kamaalka iyo dhammaystirankana waa jecel yahay. hadduu ina abuuraya muxuu daciifnimo inoogu abuuray oo dad awood leh oo dhammaystiran inooga dhigi waayo? taa jawaabteeda koobane waxay noqonaysaa daciifnimada inaynu ka hadlaynaa dhinac nuqsaan ha ka noqoto, laakiin dhinac kale waa sharaf iyo kamaal wey. ka hadli mayno daciif in loo noqdo bini aadan, laakiin waxaynu ka hadlaynaa ama daciifnimadanaynu ka hadlaynaa waa fii muqaabili quwati illaahi wa qudratih jala jalaaluh. ilaahay marka layna dhinac dhigo ayaa waxaynu nahay dad ducafa ah oo baahan oo liita. sidaa awgeed baa alla subxaanahu wa tacaala si cad u sheegay dadku inay yihiin dad baahan, isaguna uu yahay ka kaaftoon. yaa ayuha nnaas antum alfuqaraau ila allah wallahu huwa alghaniyu alxamiid. dacfiganaynu ka hadlaynaa waa daciifnimo iyo taagdarni haddaynu ictiraafno oo aynu qiranno oo aynu fahanno weelayno, sharaf iyo kamaal iyo cizi aynu ka helayno. waayo cidda aynu daciifka u noqonaynaa waa allah jala jalaaluh. camalka xubnaha laga sameeye ugu weyn ee ilaahay loogu dhowaadaa waa salaad wey. salaadu waxay ka kooban tahay afcaal
ficilada ficilka ugu fadliga badan ee ugu qiimaha badani sidaad ogsoontihiin waa sujuudda wey aqrabu maa yakuunu alcabdu min rabbi wa huwa saajid maxay sujuudda ugu qiimo badnaata oo ficilada salaada ay noqotay ta ugu qiimaha badan sababtu waa maxay waxa muuqanaya baahidaad ilaahay u qabto taagdarnidaada muuqanaysa waxa muuqanaysa dullayntaad ilaahay isu dullaynayso bini aadamku markuu kibra waxaa la yidhaahdaa sankuu taagaa baa la yidhaahdaa madaxa iyo wejiga waa meeshiisa ugu sharafta badan ee qofkuu kor u taago sidaa awgeed baa markaad qumaati u taagan tahay meeshaada kuugu sarraysa waa madax oo wejigu ugu muuqdo meeshii kuugu qiimaha badnayd ayaa waxaa lagu faray meeshii aad cagta dhigaysay ugu hoosaysay inaad waxa weeye wejiga saarto sidaa awgeed baa ficil la sameeyo salaada ugu qiimo badan salaada waxyaabaha lagu sameeyana waxa ugu qiimo badan ilaahay loo sujuudo cibaadadu waxay qiimo ku yeelataa marka ay muuqato baahida iyo dulliga iyo taagdarnida aad ku sifaysantahay ilaahay aad u muujisanayso cagsigeeda cibaadada haddii aad midna ku darto iyo anaa sameeyey iyo muujin iyo wixii la mida cibaadadaas qiimaheedu hoos buu dhacaya adacfu lbashari bini aadamku inuu daciif yahay ilaahay baa caddeeyey wakhuliqa alinsaanu daciifa waxaynu tusaalayaal ka soo qaadanaynaa oo aynu iftiiminaynaa meelaha bini aadamku uu daciifka ka yahay iyadoo aynaan soo koobi karin laakiin aynu doonayno jawaanib dacfi lbashari inaynu wax ka tilmaano marka laga hadlayo daciifnimada ama taagdarnida mar waxay noqotaa bulshadu inay daciif noqoto oo taagteedu ay gaabiso marna waxaa laga hadlayaa qofku lafaahaantiisu inuu daciif noqdo labada wax baynu ka tilmaamaynaa laakiin taynu xoogga saarayna waa ta shakhsigaa wey bini aadamku waa daciif wuxuu daciif ka yahay xagga jidhka oo jidhkiisu waa taag daran yahay khuliqa khalqan daciifa abuurkiisu waa abuur daciifa weeye xaalado kala duwan buu soo maraa allahu aladii khalaqakum min dacf ilaahay wuxuu idinka abuuray dacfi dabadeedna dacfigaa wuxuu ka dambaysiiya awood buu idin yeelay awooddaana waxaa ka dambaysa uma jacala min bacdi quwatin dacfan wa shayba marka hore bini aadamku wuxuu dhashaa isagoo daciifa oo taag daran buu dhashaa mar dhexaa ilaahay awood siiyaa dhallinyaronimada iyo marxalatulkahl intaanu shaykhuukhada iyo gabowga gaadhin marxaladaa lafteeda marka loo eego xilligii uu dhashay ee uu yaraa iyo waxa noloshiisu ay ku dambaynayso gabow ah marka loo eego ayuu awood iyo quwa ka muuqanaysaa laakiin xilligaa laftiisaynu caddaynaynaa inuu daciif yahay oo uu taag daran yahay dhinacyo badan uu daciif ka yahay waxyaabaha la yaab kale ee cibro inoogu fila waxaa ka mid a aniguna aan isweydiiyo waa laga yaabaa dad badani inaanay hoos u sii eegin waa laga yaabaa markaynu makhluuqaadka qaar isdhinac dhigno inaynu xoog isbidno makhluuqaad kale markaynu isdhinac dhignana sida maroodiga iyo xayawaanaadka la midkaana yaraanteennu inay muuqato dacfigeenna waxaa tusaale kuugu filan habeenkii markaynu seexanayno hadda waxaa laga yaabaa dabeelxagaa baa jirto waxaa laga yaabaa kaneeco badan inaanay jirin laakiin xayawaanka kaneecada la yidhaahdo sidaynu uga qalab qaadanno aynu uga gaashaamanno aynu uga cabsanno cid waliba waa dareemaysa inta uu leegyahayna waynu aragna mara kaneecaynu ka gallaa
sunbaynu iskaga buufinaa bahla waxa la inoo keenay leerka la galiyo oo ur soo deynayo ka eriyay qiiq baa inta la shidaya dadkeena waaweyn xooggaale kanaacada yar baynu waxa weeye la jihaadina oo iska ilaalinayna marka banaanada loo soo baxo haday ku qaniinto markay ku qaniinayso qofku dareemi maayo waayo ilaahay wuxuu siiyaa awood intaanay ku qaniinin oo dhiigaaga jaqin ay waxa weeye ku takhdiirinayso oo meesha ay doonayso dhiigiisa inay jaqdo ayay suuxinaysaa dabeedna iyadoo ka dharagtay baad bilaabaysaa inaad xoqdo markaad xoqitaanka bilowdana maba joogtaba hore u sii socoto waxay tusaale u tahay ضعفiga bini aadamkay tusaale u tahay jawaanibta uu daciifka ka yahay waa badan tahay waxa kamida marxalatu shaykhuukha markuu gaboobo wax badan oo dhalinyaranimadii uu awoodayay baan uu awooday ilaahay wuxuu yiri waman nu'ammirhu nunakkisu fil khalq qirada kalena nankusu fil khalq qofkaanu cimri siino waxaanu dib ugu celinaa marxaladii uu daciifka ahaa abuurkiisii baa dib loo celiyaa maqalkii ma araguna aragii ma socodkuna socodkii ma shahwadii ma cuntadu uu cunaya cuntadii ma waxyaabo badan buu qofku ka daciifaya ilaa uu ka gaaro kaadida soo bixitaankeeda iyo suu isaga soo saaraya inay culays ku noqoto dhinacyo badan buu ka daciifaya ilaahay waa sheegay ضعفigaas waxa kamida xamalathu ummuhu wahnan ala wahn hooyadii markay siday ee uurka uu ku jiray hooyadiina waa daciifaysay isaguna daciif buu ahaa waxa kamida ضعفigaas الضعف العلمي aqoontiisu inay daciif tahay kuwii aqoonta la siiyay ee cilmiga la siiyay ayaa Allah subhanahu wa ta'ala uleeyahay wama utiitum min al-ilmi illa qalila cilmiga wax yar mooyaane wax kale la idinka siin wala yuhituna bi shay'in min ilmi illa bima shaa ilahi ilmigiis waxba ka gaari maayaan walibana cilmiga yar la ina siiyay waa cilmi jahlina uu ka horeeyay oo qofku markii hore uu jaahil ka ahaa ilowna uu ka dambeeyo waa cilmi labada dhinacba nuqsaani ay ka xigto jaahilnimana waa ka horeys waxana ka dambeeya ilowba ka dambeeya oo qofku markuu weynaado cilmi badan buu ilaawaya bal ilaahay wuxuu ka soo gaarsiiyay qofku si kasta oo uu maskax badan yahay oo uu tilaac ya akhris badan yahay oo aqoon badan uu sheeganayo bari waxa dhacaya ama ku imanaya inaanu ogaanay wama tadri nafsun madha taksibu gada wama tadri nafsun bi ayi ardin tamut nafina garanayso bari waxa ay kasbanayso qorshayaal baa la sameeyaa balayna la jeexdaa waxa weeye balaynkaas maalin hebla waxa san qabanaya bil hebla waxa san qabanaya sanadka soo socda waxa san qabanaya adigu waad qorsheynaysaa waad ku talagalaysaa tii allana waa meesheeda weey wixii aad ku talagashay sida aad ugu talagashay inaad wada fuliso ma awoodid sida ogeed dadka xarfaanta ay waxa yiraahdaan beren bi bay yiraahdaan qorshaha aan bari ku talagalay haduu dhici waayo qorshe labaad oo kaasi haduu naftayda ka suurtoobi waayo ama xagga allaba aqabada ay ka yimaadaan balen bi ayay waxa weeye dadka qaar samaystaan waxaasi waa maxay waxa lagu tusaya bini aadamka daciifnimadiisa lagu tusaya waxa kamida ضعفiga والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وحين دلني إنه وح جرادة يوح أقونا يوح جرشا بدنا الله
oo wixii ina dhibaya la inaga ilaalinayo markaas waa Allah subhanahu wa ta'ala waxa weeye cilmi iyo aqoon ina siiyay aynu wax ku kala soocayno waxa kamida ضعفiga kamida ضعف العزيمه وضعف الاراده qofku in uu daciif ku yahay xagga go'aan qaadashada wax badan oo aad jeceshahay baadan sameynay oo aad ka caajisaysaa wax badan oo aad doonayso oo dantaada iyo mustaqbalkaagu uu ku jiraad ka gaabinaysaa waxaad uga gaabinaysaa doonitaankaaga dacfi ku jira waad jeceshahay laakiin go'aan qaadashadii baa ka dhiman oo aad ka daciifaysaa wuxuu nabigu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiix muslim markii Allah subhanahu wa ta'ala nabiyullaahi aadam uu abuuray ayaa waxa la sameeyay jirkiisa la sameeyay waa la qaabay laakiin nafta in lagu abuuro oo uu dhaqaaqo ayaa Allah subhanahu wa ta'ala dib u dhigay shaytaankii baa ku dul dawaafay oo ku dul wareegay isagoo doonaya inuu ogaado makhluuqan cusub ee Allah subhanahu wa ta'ala uu abuuray faja'ala ibliisu yatuufu bi ibliis baa wuxuu guda galay inuu ku wareego oo ku dawaafo wuxuu arkay ibliis inuu yahay ajwaf abuurka nabiyullaahi aadam la abuuray inuu yahay mid calool leh oo dhexdiisu qaawanta oo dhexda uu ka daloolo daloolkaasina uu u baahan yahay la buuxiyo ayuu ibliis arkay dabeedna wuxuu ogaaday annahu khuliqa khalqan la yatamalak aadam calayhi salaam in la abuuray iyo ibni aadamka abuuritaan aanu waxba xejisanayn baahiyiis iyo xaajaadkiisa aanu iska difaaci karin khuliqa ajwaf shaygu markuu dhexda ka daloolo waxa fudud inuu isku dhaco isku duno marka calool laynoo sameeyay calooshaasina u baahan tahay in la buuxiyo cunto iyo cabitaan iyo wax la mid ah ay u baahan tahay xaajada iyo baahidaas waxay keenaysaa haddii qofka ay ku timaado inuu meelo badan u jiro haday xaaran tahay haday tuuga tahay haday tahay wax ilaahay ka xarimay khamri iyo khanziir iyo wax la mid ah shahawaad badan oo loo diiday inaanu ka xijisanayn taana insha Allah ta'ala wanu si cadeyn doonaa ضعفiga waxa kamida الضعف النفسي بنا آدم كنفتيسو إنay ضعيف tahay oo qofku naftiisa aanu xakamayn karin وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بسوء إلا ما رحم ربي امرأة العزيز waxay tiri naftayda bariye limaay waay naftu dadka waxay fartaa oo amartaa xagga xumaanta ka hadalka oranayna waxa lagu sheegay inuu yahay Yusuf alayhi salaam isagoo tawaaducaya naftu waxay jeceshahay xagga shahawaadka ولذلك بقى النبي عليه الصلاة والسلام حجبت النار بالشهوات لفظ البخاري حديث هو متفق عليه نار توحل حجابي وحي نفط أي على سريس مركز سيد الشهوات كان لو دبقلي اللون مع سريو أيا وحوي النار تلو داضنية شهوات كاس نفط أي على سريس هو انتهي شهوة الفرج شهوة فرجها oo sababta aayadaasi ay ku soo baxday ay tahay yuriidu Allahu an yukhaffifa ankum wa khuliqa al-insanu dha'ifa salaf badani waxay ku macneeyeen wa khuliqa al-insanu dha'ifa insaanka waxa la abuuray isagoo dha'ifa ay la yasbiru 'an an-nisaa dumarka isagoo aan ka haysanayn oo shahwadiisa galmada aan xajisan karin oo aan xamilayn ayuu Allah subhanahu wa ta'ala abuuray sababtay culimadu sida u leeyihiin aayadihii ka horeysay waxa laga hadlay dumarkii la xaraantinimeeyay waxa laga hadlay
qofka muslimka ah inaanay u bannaanayn gabadh addoona inuu guursado ilaa laba shardi illa hela mooyaane. shardiga koowaad inuu gabadhaasi noqoto gabadh mu'minada, shardiga labaadna gabadh xora guurkeeda inuu awoodi waayo. dalika liman khashiya alcanata minkum, waa markuu zina ka baqo ee naftiisa u baqo ayaa alla subxaanahu wa tacaala gabadhii addoonta ahayd loo banneeyey. iyadoo ilaahay uu taa tilmaamayo ayuu alla subxaanahu wa tacaala yidhi yuriidu allahu an yukhafifa cankum, ilaahay wuxuu doonayaa culayska iyo dhibka idin haysta inuu idinka fududeeyo oo waxa aydan ka xejisan karin inuu idin sahlo oo jaanisya uu idin siiyo. wa khuliqa alinsaanu daciifa, insaankana waxa laga abuuray inuu yahay daciif oo aan waxba xejisan karin. saciid ibn lmusayib oo taabiciintii waaweynaa ka mid ah bal lagu tilmaamay inuu yahay khayru taabiciin afdal taabiciin wa khayruhum uwaysun ama alafdalu fabnu lmusayabi wa kana alcamalu. cilmiga iyo waraca iyo cibaadada iyo maamuuska raggii taabiciinta ugu waaweynaa buu ahaa saciid ibn lmusayib. markuu gaadhay 80 sano uu gaadhay 80 jir uu gaadhay ayaa wuxuu yidhi cimrigaygu 80 buu marayaa, labadayda indhood mid waan beelay buuri oo waxba ka arki maayo, ta labaadna way daciiftay, maalinkii baan wax ku arkaa habeenkiina waxba kuma arko. anigoo saasa buu yidhi haddana haddii gabadh iga ajnabiya qollaygu xidho oo aan la gaar noqdo naftayda aamini maayo buuri, waan uga baqaya. daciifnimadana halkaasaa ka gaadhay buuri. taa waxaa sii caddaynaya xadiidkii ku yimi sunani abi daawuud ayaa nin saxaabiya, xadiidkan albani waa saxiixinaya, nin saxaabiya baa xanuun ku yimi. riwaayadku waxay tilmaamayaan xataa adnaahu lmarad, ilaa xanuunku uu jiifiyey oo uu daaliyey. idnaaguna waa xanuunku intuu kugu dhaco markaad tidhaahda ka soo kac mid horle inuu kugu yimaado. xanuunba xanuun buu u dhiibay, wuxuu noqday baralaati buu noqday, qof aan kici karin buu noqday. dabeedna maalin maalmaha ka mida waxaa u soo gashay inaan cunto u sida ayaa u soo gashay. waa xilligii nabiga calayhi salaatu wasalaam, waa saxaabi. fahasha laha, inantiibuu ku farxay, nashaad baa galay. waa nin bilo furaashka aan ka kicin. waxaa la yidhaha hebel intaasoo bilood buu dhakhtar ka yaallay. dabeedna gabadhii buu halkii kaga zinaystay walciyaadu billah, xumaantii ku sameeyey. saxaabadii ehelkiisa ahaabaa u yimi iyagoo soo booqanaya, isagoo halkii jiifo baralaysa tacbaana. dabeedna waxaa uu yidhi xaalkaygu waa sidaas, gabadh baa ii timi, gabadhiina waan ku dhacayo waan ka zinaystay buui, nebiga ha laygu tago, xaalkaygana ha loo sheego. aad bay u yaabeen, naftay ka sugayeen, ninay ka filanayeen may ahayd. nabigay u tageen calayhi salaatu wasalaam, nabiguna wuxuu hayaa in xadka laga oogo un wax kale lama hayo. dabeedna si ay nabiga ugu qanciyaan ninkani inaanu xadka iska xejinayn, waxay ku idhaahdeen nebi allow, ninkaas waxaanu awoodi weynaa inaanu kuu soo qaadno, waxaanu ka baqnay an tatafasakha jilduhu can cidaami. ninka haddaanu isnahno soo qaada, hilibkiisa iyo maqaarkiisa iyo lafihiisu inay kala soocmaan, daciifnimo halka uu ka gaadhay ayaanu ka baqaynaa bay yidhaahdeen. nin xitaa furaashka laga dulqaadi kara maaha oo la xambaari kara maaha oo jirkiisu iska xejin maayo. waxay yidhaahdeen innamaa huwa jildun calaa cadm, waa maqaar iyo lafiisa saaran wey. ninkaasi daciifnimo halka uu ka gaadhay. wamaca dalik gabadh buu ku dhacay. ee maxaa la samaynaya? xadkana iska xejin maayo,
oo boqolka jeedal xabada koowaad ba laga baqaya inuu dhinto wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam boqol caleemood ama laamood oo jilicsan qaada oo isku qabta boqolka laamood oo hal mar si fudud ugu dhufto boqolkii jeedal saasay ku dhamaanayaan waxaan filayaa tusaale iyo cibro qof walba way ugu filan tahay bini aadamku sida uu daciifka u yahay isagoo xaaladda ku sugan buu naftiisa xakamin kari waayay dadka qaarna waxaa laga yaabaa sida hadda dhacda inta la isdhex galo oo la isku milmo rag iyo dumar bal la yiraahdo waa la isa salaamaya oo dhabanka la isu saaro oo sidii rag isu mucaanaqeynaya laabta la isu saaro in haddana la iska dhigayo dad abriya ah oo aan waxba xumaani aanay ka dhici karin waa saaxiibaday waanu wada shaqaynaa ganacsi baa naga wada dhaxeeya jaar baanu ahayn isku galaas baanu ahayn waa ya wixii la mid ah waxa ka mid ah ضعف اليقين bini aadamka yaqiintu inay daciifto oo si kasto xaqaa'iqda loo tuso yaqiintiisu inay daciifayso taana meel badan baa lagaga warbixiyay ilaahay wuxuu yiri wa minan naas man ya'budu allaha ala harf fa in asabahu khayrun itma'anna bihi wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi dadka qaar baa dhinac shaafalato ilaahay ugu cibaadaysanay cibaadadii iyo salaadii iyo khayrkii iyo wanaagii iyo diintii hadduu khayr kale ku helana wuxuu oranayaa waa waxaagii wax lagu daray waa sii wadaya haddii xaaladdu ka kala kacdana markuu masjidka soo galo waxa weeye waa u daba jeedinaya aayaddu waxay ku soo degtay sida Bukhari ku timi nin baadiyaha ka imanaya xilligii nabiga calayhi salaatu wasalaam dabeedna waa soo islaamay markuu soo islaamo haddii xaaskiisu wiil ay u dhasho xadiidka Bukhari ku jira xaasku haday wiil u dhasho carabtuna wiil bay jeclaayeen faraskiisuna uu dhalo magaalada Madiinana meel xanuun badan bay ahayd jirkiisana uu caafimaad qabo wuxuu oranayaa hada diin saalih wallahi waa diin wanaagsan meesha wiilna waa igu dhashay faraskiyo mudaan ay dhalayna waa ii dhalay dabeedna diinta halkaas uu ka sii waday haddii xaasku gabadh u dhasho faraskuna dhali waayo ama caafimaadkiisu xumaado sidii Madiina looga bartay intuu daba jeediyuu oranayaa hada diin suu diintani diin wanaagsan ma waa dhowr iyo 30 sano ama 40 sano ka hor meelo waxaanu gaarnay dacwadu baanay gaarin waxaanu ugu tagnay nin xooga ariya haysta oo aan weligii tukan xayn ariyo haysta weligiina ma tukan salaadii iyo wanaageedii baa looga sheekay oo ku qanacay salaadii buu bilaabay ilaahay baa imtixaamay duhurka markuu tukado laxba dhibata casarka markuu tukado urgi baa dhinta cishaha markuu tukado ceesaan baa dhimata dabeedna culimadii buu la hadlo waxa la yiri ku sabir baa la yiri imtixaan baa kugu socda siduu u waday baa markii hal ceesaani ay soo hadhay ayuu war xoolihiiba dabarku xabadana yaanay dhiman salaada jooji salaadii jooji walibana ma joojine ceesaantaasi markay boodboodaba wuxuu yiraahdaa atajlisiin wa illa sallaytu rak'atayn ama waad fadhiisan bisa laba ragcadood baan tukadaa wuxuu ka aaminay salaadu inay leeynayso xoolaha leeynayso inay leeynayso yaqiintii baa daciifa dad badan baa xalkoodu sidaya waxa kamida ضعف المعتقد bini aadamka daciifnimadiisa waxa kamida yamaan gaabnimadiisa iyadoo Allah subhanahu wa ta'ala uu abuurtay oo la doonayo kaliya inuu u cibaadeysto inuu dhagaxan sameysanayo ma la yadur wa la yanfa wa ya'buduna min duni Allah ma la yadurruhum wa la yanfa'u waxaan dib iyo dheefminda ku keenay loox la xarnay ayuu u sujuudaya oo cibaadeysanaya taa waxa ka yaab badan
oo ka cajiibsan qisada uu inooga sheekeeyay Umar ibn al-Khattab oo intay timirtii ay jeclaayeen tay soo qaadaan bay sanam ka sameeyeen qaamo iyo lugo iyo madax baa loo sameeyay wuxuu yiri markaan waanu caabudnaa waanu u tukanaa waanu u sujuudnaa waa sanam timir laga sameeyay markay gaajoodaan bay lugta goostaan ila waa timir ilaahi uu cibaadaysanay uu cunay kii uu caabudayay ayuu waxa weeye marballo iyo qacan goosanaya waa dhaafiga binaadamka waxa kamida dhaafu tasarruf waxa uu samaynayo inaanay u miisaanayn oo uu ku foogan yahay wax dhibaato ku keenay marka aqligiisa uu bandhiga uu fakaro wax badan oo uu diidayo ayuu haddana samaynaya oo uu ku dhaqaaqaya waxyaabaynu ku tusaaleyn karno waxa kamid ah nin waxa weeye maal qabeena oo ka shaqaysta suuqa asunta ama sheerka suuqa loo yaqaan inagu wali ma inaan gaadhin shirkadaha hadda waxa lagu darsadaa sheer baa lagu darsadaa shirkadihii sheerka sameynayay baa meel la isugu wada geynaya shaashada loo sameynaya waxa weeye qofku lacagtiisu diyaarsanaya shaashadaas uu furanaya dabeedna shirkad hebla qiimaheedu waa sii kordhaya sheerarka iga iibiya badhan buu taabanaya waa iibsanaya lacagtana waa u shubaya shirkad hebli hoos bay u socotaa sheerkayga waan iibinaya uu ka baxaya shaashadaas uu ka shaqeynaya malaayiin buu faa'iidaya malaayiinna waa khasaaraya waa nin maal qabeena wuxuu soo fadhiistay xafiiskiisii malaayiin buu kala xisaabinaya xafiiskiisii markuu soo fadhiistay ayuu wuxuu ku mashquulay sheerarkaas midna uu iibinaya midna uu soo iibsanayo siduu u waday baa quraacdii loo keenay waa laga celiyay oo maqan oo mashquulsan yahay barqadii baa shaah loo keenay waa laga celiyay qadadii baa loo keenay waa laga celiyay casarkii baa shaah iyo casariyo loo keenay waa laga celiyay maskaxdiisuna waa maqan tahay shaashad weyn baa halkan u taalla iibi soo iibsadaas oo haya badhamu taabanaya suuq dhanoo aad u weyn baa u furan markii gabalku sii dhacay maaha qof jiifa maaha qof nasiina ku jira maaha waa qof maskaxdiisa iyo jirkiisu uu aad u shaqaynayo oo wax kala xisaabinaya markii gabalku sii dhacayay ayuu kursigii ka dhacay oo uu sooxayo miyirkiisa uu tegay waa nin maal qabeena markii baa la isku yaacay ambalaastii baa loo yeedhay hosbitaalkii baa la geeyey baaritaano degdega loo sameeyey natiijadii waxay noqday ninka waxba ma qabo gaajo iyo haraad u baahaya waxna ha la siiyo cabitaanna ha la siiyo waa ninkii malaayiinta kala xisaabinayay ضعفiga waxa kamida ضعfi ku saabsan xagga bulshada الضعف الاجتماعي oo qofku markuu la macaamilayo bulshada in ضعfi ku imanayo qoyskiisa markuu la macaamilayo ayuu daciifaya qabiilkiisa markuu la macaamilayo daciifaya asxaabtiisa markuu la macaamilayo daciifaya ضعfi kaga imanaya xagga bulshada kaga imanaya ضعfigaasina waa badanya ولذلك بقى الله سبحانه وتعالى يري وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى هداد مرخاتي فريسان هداد عيد أمانيسان هداد عيد كلا حكوميسان وحوي أحواشا كانت دول عدالة كددالة ولو آد مرخاتي كفرتان وعدالة آد كو أوكتان تدكي قرابة إذ الله وهي إنسانك markuu waxa weeye ay timaado ehelkiisa iyo qaraabadiisu meel badan buu u seegaya oo u taasubaya oo waxa weeye xaq badan buu ka tagaya isagoo qaraabo kiil sameynaya wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam alwaladu mabkhalatun majbana ilmuhu fulaynimu kugu keena oo geesinimo badan oo xaqu kaaga baahnaa baad ka baqaysaa jihaadka aadimays caruurtiiba agoomoobeysa mabkhala bakhiilnimo badan buu kugu keenaya
oo markuu doonayo qofku inuu sadaqadaysto ayuu ubadka dib u eegaya oo uu doonaya iyaga inuu wax u dhigo. waxa tusaale kuugu filan saxaabigii weynaaye Xaatib ibn Abi Balta'a radiyallahu ta'ala anhu wuxuu kamid ahaa raggii Badar ka qayb galay, wuxuu kamid ahaa muhaajiriintii saxaabada kuwii ugu fadliga badnaa ayuu kamid ahaa. markuu doonayay nabigu calayhi salaatu wasalaam Maka inuu ku duulo ayaa saxaabigaasi wuxuu nabigu saxaabadii faray inaan lala xidhiidhin Maka oo si kadisa lagu galaya qorshuhu ahaa. Xaatib ibn Abi Balta'a qoraal buu u qoray ahlu Maka uu leeyahay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam baa idinku soo socday diyaar garooba. Xaatib ibn Abi Balta'a markuu sidaa leeyahay waa nin saxaabiya, walibana waa kuwii muhaajiriinta ahaa ee Badar ka qayb galay. uu og yahay nabiga calayhi salaatu wasalaam in ilaahay u waxyoonayo, laakiin baahida iyo ubadkiisa iyo qaraabadiisa darayn uu daraynayo ayuu waxa weeye u daciif oo ilaahay iyo rasuulkiisa uu khilaaf oo sirtii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu gudbiyey oo cadowgii uu u sheegay. waxyi baa soo degay nabiga u sheegaya Xaatib ibn Abi Balta'a waxa uu sameeyay warqadii iyadoo meel dhexe sii socotaa la soo qabtay oo Miqdaad Ali ibn Abi Talib uu nabigu u diray way keeneen. wuxuu yeeray nabigu Xaatib ibn Abi Balta'a wuxuu ma xamalaka ala ma sana't, Xaatib maxaa kugu kalifay waxaad samaysay? Xaatib waxa uu rasuulkii Allah nimankan kula socda waa laba midu, waa ansaar oo dayagu dagaankooda joogo ubadkooda iyo dadkoodii haysta, iyo dad muhaajiriin oo Maka ka yimi. kuwa muhaajiriinta ah eheladooda iyo qaraabadooda ay ka soo jeedeen baa difaacaya cidii ka hadhay oo ehel iyo qaraabay leeyihiin. anigu laakiin Quraysh kama dhalan, nin dhalada ma ihi, gaashaanbuur baan laahay, xilfi baa naga dhaxeeya, inaan difaaco ayaa waxa weeye naga dhaxeeya. waxaa ii joogta qaraabaa ii joogta, waxaan doonayaa qaraabadayda inay ii ilaaliyaan oo weji iyo magac iyo qacnaa ku yeesho si ubadkayga iyo qaraabada ii joogta ay ugu ilaaliyaan. ضعف kaga yimi xagga qaraabadiisa uu u dhagan nuglaaday ayuu waxa weeye waxa soo dhiba u galay, xitaa uu ka mooganaaday nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxii inuu ku soo dagayo. wuxuu nabiga ku yidhi calayhi salaatu wasalaam, nabi allah gaalnimo aan gaaloobay sidaa umaan samayn, inaan gaalnimada jeclaysanayana igama ah, diinta islaamka inaan dib uga noqdayna igama aha. daciifnimadaasaa loo tixgeliyey oo waxa weeye loogu dambi dhaafay. laakiin waxaa la tilmaamay oo ilaahay uu soo dejiyey, yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu caduwii wacaduwakum awliyaa. dacfiga waxaa ka mid a ummadii inay daciifto oo waxa weeye hadday xagga ciidanka tahay, xagga dhaqaalaha haddii ay tahay, jawaanibta kala duwan ee nolosha inay ka daciifto iyaduna waa dacfi. ummadda islaamka hadda aynu ku aragno, walibana ummadeenna aynu ka dhalanayna sida gaarka ahina iyaduna dacfigeedu oo aad iyo aad u sii muuqdo. maxaa keena in la daciifo? asbaabta dacfiga keena waa badan tahay. waxaa ka mid ah asbaabta keenaysa altabaciya waltaqliid, qofku cid kale oo ka awood badan inuu dabagalo oo iyaga uu ku daydo. sida ibnu khalduun raximahullahu tacaala uu tilmaamo, bini aadamku wuxuu jecel yahay cidda ka awood badan inuu waxa weeye ku daydo, isagoo u malaynaya dadka noocaasi kamaal iyo dhammaystiran iyo awood inay gaadheen, dabeedna ficiladooda uu koobiyeynayo oo uu taqliidanayo. waana maanta waxaynu la ildarannahay inaynu reer galbeedka maanta waxyaabo badan kaga dayanayno, sida loo labisanayo, sida timaha loo jaranayo, sida la isu maamulayo, sida waxa weeye loo wada dhaqmayo, waxyaabo badan laga soo waaridayo laga soo qaadanayo. qodobka labaad ee keena daciifnimada waa at-tanaasuc wal ikhtilaaf, in la qaybsamo
oo waxa weeye la iskhilaafo oo markay noqoto xagga diinta waxa weeye ahzaab iyo firaq la noqdo markay noqoto xagga siyaasadda la qaybsamo markay noqoto xagga qabaa'ilka waxa weeye la qaybsamo oo intaas oo inqisaam oo qaybsan oo dadka si waxa weeye salbiya oo waxa weeye khaldan u saameynaya ay waxa weeye dadka ay ku imanayaan الركون إلى الدنيا إلا جعليستو oo waxa weeye laga daba dhaco ayaa iyaduna asbaabta kamida lagu duloobayo xuri nabiga kaleey salaatu wasalaam yushiku al-umam an tadaa alaykum kama tadaa al-akalatu ila qas'atiha waxa soo dhawaanay soo imanays in ummaduhu isugu kiin habar wacdaan sida kuwa xeerada wada cunayaaba ay isugu habar wacdaan nabiga la weydiiyay kaleey salaatu wasalaam maalinta miyaanu yarnahay wuxuu nabigu ma yaaleeyay salaatu wasalaam laakiin waxa tihiin dad badan oo dad xoora oo aan qiimo badan lahayn oo taagdar wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa taa idinku keenaya alwahan in dhacfi idinku yimaado wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam wahankuna wa hubbu dunya wa karahiyatu al-maut inaad adduunyada jeclaysanaysaan geeradana aad dhibsanaysaan waxa kamid asbaabta keenaysa tarkul jihad fi sabilillah jidka alla in loo dagaalamo oo loo jihaado in laga dhaifo jihadkuna waa ballaaray waa jihadun bisinan wa jihadun bisinan waxa weeye arabka in lagu dagaalamo xoolaha lagu dagaalamo in qacanta laga dagaalamo marba kiimeesha yaala wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka Anas jaahidu al-mushrikiina biamwaalikum wa anfusikum wa alsinatikum in jihaadka laga gaabiyo oo gaaladiina waxa weeye loo babacdhigi waayo dagaalkii tooska ah arabkana xaq laga cadeyn waayo al-jihadu bil-lisan oo munkarkii laga hadli waayo oo waxa weeye xoolihiina lagu jihaadi waayo oo meelihii khayrkee lagu bixinayo laga la gaabinayo oo laga la jeclaanayo waxyaabaha dhacfiga keena waxa kamida al-infi'aalaat wal 'awaarid al-bashariyya qofka bini aadamka ahwaasha kala duwan ay ku imanaysa cabsi qofku uu cabsanayo oo hadduu khayrka iyo wanaaga u dhaqaaqa uu ka baqayo dhibi inay ka soo gaadho al-khawf oo jubnigu uu kamid yahay waxa kamid ah an-nisyaan xaqi illa oo waxyaabo kale lagaga mashquulo walaqad ahidna ila aadama min qablu fanasi walam najid lahu azma wana halki ku yimi nabiyullaahi aadam alayhi salaam abahi markii Allah subhanahu wa ta'ala uu uga digay geed jannada ku yaala la yiraahdo cuni iyadoo lagu imtixaamayo ayaa waxa dhacday inuu shaytaanku u yimi oo ku yiri hal adulluka ala shajarati al-khuld wa mulki la yabla ma kuntu saageed hadii aad cuntaada waarayso iyo boqortooyo waligeed ba aan ka baaba'ay geedkaacu siduu u waswaasinayay ayaa waxa ka qalib noqday oo ku ilaaway nahyiga Allah subhanahu wa ta'ala ka nahyigeedka inuu cuno ilaahay wuxuu ri fanasiya wixii la faray buu ilaaway walam najid lahu azman go'an oo ku sugnaanaya geedka cunidiisa inuu ka fogaadana ma helin buu ri Allah subhanahu wa ta'ala inaguna waxa weeye xaalkeenu waa sidaas waxa kamid ah al-haajaat baahiya bin aadamku uu qabo oo wuxuu qabaa baahida cuntada iyo cabitaanka wuxuu qabaa baahida hurdada wuxuu qabaa baahida galmada wuxuu qabaa baahida hoyga meel uu hoydo u baahan wuxuu bin aadamku qabaa baahiyo badan buu qabaa baahiyahaas waxay keenayaan marka ay ku yimaadaan inuu daciifo asbaabta waxa kamida الذنوب والمعاصي
inuu qofku dambiye iyo macaasi uu ku dhaco dabeedna alla subxaanahu wa tacaala uu cidhiidhi geliyo waman acrada can dikri faina lahu maciishatan danka wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acma ilaahay markuu qofku xuska alle uu ka jeesto ee dunuub iyo macaasi uu dhex dabaasho cidhiidhi buu ilaahay nolosha ka gelinayaa ina alcabda la yuxramu alrisqu bidanbi yusiibu wuxuu uhi nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaa laga yaabaa qofka shaqada in looga eriyo ama meheradiisu ay ku kacdo ama arsaaqad badan uu u seego dembi uu sameeyey awgeed marka cidhiidhigaasi ku yimaadana waxa ku imanaya dacfi badan waxaa ka mida waxyaabaha qofka daciifinaya almarad xanuuna inay ku yimaadaan oo wax badan oo khayra uu qabanay uu ka daciifayo waxaa ka mida alkibar washaykhuuqa inuu weynaado oo uu gaboobo oo waxa weeye haram uu gaadho oo wax badan uu ka daciifo waxaa ka mida waxyaabaha dacfiga inagu keenaya annahu aslu nash'atina abuurkeennuba inuu sidaa yahay oo alla subxaanahu wa tacaala uu inaga abuuray wax liitaw inuu inaga abuuray waxaa la inaga abuuray ciid khalaqakum min turaab walaysa min dahab ilaahay dahab inagama samayn ee ciid buu inaga sameeyey maxaa ciid laynooga sameeyey ciiddu waa waxa ugu qiimo jaban wey maanta dahabka inta la kala siista waynu garanaynaa macdanaha kale inta la kala siista waynu naqaanaa laakiin cid iskama iibiso masjidka haddaad ka baxdo 2 saacad oo ciidoo bilaash ama intaa doontaad guranaysaa walidaalika bay carabtu waxay ku maahmaahaan waxay yidhaahdaan taribat yadaag qacmahaagu ciidoobe yacni caydhoobe markuu qofku kuu jawaabaya wuxuu ku odhanayaa maa laka ila turaab waxaan ciid ahayn kuuma hayo waayo ciid bilaash buu kuu soo guraya yacni ciid waxaan ahayn kuuma hayo macnaheedu waa maxay waxba kuuma hayo ciid baa laynaga sameeyey qiimaheennayna tusaysaa mar labaad waxaynu ka samaysannahay dadkeenna jooga aadan baa ka samaysan ciid oo aynu ka soo jeedno innaguna waxaynu ka samaysannahay mani ilaahay uu ku tilmaamay inay tahay maa'in mahiin biyo liita inuu yahay waxaa lagu tilmaamay fii qimati alxaqaara liidashada halkii ugu dambaysay inuu yahay mahiin waa siiqatu mubaalaga min alihaana liidasho halkii ugu dambaysaa lagu tilmaamay walidaalika manidaa laynaga samaynayo ma cid baa ku faantoo dibadda ula soo baxda macawistaadoo mani ka buuxdo dibadda mayaad ula baxaysa cidna ulama baxdo waa la yska maydhaa jidhkana waa laga maydhaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam baa iska maydhayay kunnaa naqsilu lmaniya min thawbi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam taa macnaheedu maaha inay nijaas tahay nijaas maaha laakiin waa wax la xaqiro oo laga khashaafo oo qofku uu iska maydhayo oo aanu ku faani karin wey waa waxaynu ka soo jeedno nin boqora ayaa ummadda isugu soo baxday wadooyinkaa la isu tubay nin waxa weeye ahlulcilmi iyo ahlulfadliya ayaa wuxuu arkay ninkaasoo aan wadada u taagnayna iska fadhiya dadkuna waa tubayi ha la igu yeedha buui waa loogu yeedha wuxuu hi ummaduba waa taagantaha weynaysiinayaan iyo haybada iga haybadaysanayaan adiguna waad fadhidaa shiikhu wuxuu doonay inuu xaqiiqadiisa u sheego wuxuu hi sidee baan kuugu istaagaa wa anta awaluka nudfatun madira wa aakhiruka jiifatun qadira wa anta bayna daka wadaka taxmilu lcadira wuxuu hi maxaa igu khasbaya inaan kuu istaago horta waxaad ka soo jeedaa mani quruna oo la yska maydho ayaad ka soo jeedaa waxaad ku dambaynaysaa markaad dhimato bakti uraya oo maanta maydkaaga haddaan la aasin ilaahay baa ina kala asturaye bannaankaa la dhigo
oo laba saddex cisho aad taallo soo sanka laga qabsan maayo sanka laga qabsanaya qarmuunkaaga laga baxaya taana waad ku dambaynaysaa inta labada u dhaxaysana ee aad nooshahay aad soconayso caloosha saxara kaaga buuxda saxarada aynu caloosha ku sidanay mar walba wax baaqiga inagu yihiin haddii bannaanka la soo dhigo ka kugu xiga urinayo miyaynu wada fadhiisan lahay cidina ma wada fadhiisateen markaa ninkii boqorkaa intuu isku khajilay buu aamusay dib ugu jawaabay xaalku waa sidaas ضعفك بن آدم markay ka sheekaynayaan annahu laa xawla lahu walaa quwa inaanu awood lahayn waxay ku tusaaleeyeen khaliifkii la odhanaya haaruun arashiid ayaa waxaa u soo galay nin maskaxdiisa laxanto laakiin xikmad badan alxikmatu fii afwaahi lmajaanin baa lir waa aragteen ninku markuu ku dhufto meelo badan iyo waali badan buu ka hadlaa xikmado badanna waa sheegaa nin maskaxdiisa laxantaa u soo galay dabeedna wuxuu ihi iwaani waxaan doonayaa inaad iwaaniso markaa khaliifka waxaa hor yaallay koob biyaabaa hor yaallay wuxuu ihi waana badan kuu sheegi maaya koobkaa biyaha aad cabbayso markaad u baahato ee aad haraado haddii koobkaa biyaha lagu diido oo lagu idhaahdo lagu siin maayo ilaa boqortooyadan aad haysato kala badh aad ka tanaasusho biyaha ma dhaafsiisan lahayd haabuud ninka sidaa uu ku leeyahay waa kuma waa haaruun arashiid waa ninka markay daruurtu soo dulmarto odhanayay meeshaad doonto dunida kaga daa ama gibir baa layga keenaya hadday gaalo ku daado baadii gaalada laga qaadaya baa lai keenaya hadday muslim u daadana wixii beertooda uga soo baxay zakadooda lai keenaya meeshaa doonta ku daa waa ninkii sidaa u hadlayay wuxuu ihi boqortooyadeeda kala bar baan ka tanaasulaya si aan koobkaa u cabo wuxuu ihi koobkii markaad cabto qayb baa kaadi noqonaysa wuxuu ihi kaadidu hadday kaa soo bixi weydo maxaad samaynaysaa si ay kaadida kaaga soo baxdo nuska kalena ma ka tanaasulaysaa haabu qof kaadidii hayso ay ka soo bixi laadahay kaadidii ku dhagan tahay si ay kaadidu uga soo baxdo nuska kale boqortooyadana waan ka tanaasulayaa wuxuu ihi haddaba waxaan kuu sheegayaa madaxtinimada kula weyn kama badna koobkaa kama badna marna aad u baahan tahay ood cabbayso marna qashinkeedu inuu kaa soo baxo aad u baahan tahay oo wax walba aad daabsiisanayso waxay tilmaamaan nin kaloo isna khulafada ka mida ayib nin kaloo khulafada ka mida ayaa isaguna wuxuu doonay markay doonayaan inay caddeeyaan bini aadamku siduu u taagdaran yahay wuxuu ihi waxaan doonayaa maanta badhaadho iyo farxad halkii ugu dambaysay inaan galo tiimkii ila shaqaynaya yaana ii soo gelin buuri yaana ii soo gelin mar labaad waxaan doonayaa wax kastoo naftaydu jeceshahay waa boqor waa khaliifa in halkaa laygu keeno waxaa la yidhi halkan ku suurtoobi mayso waa inaad dadka ka dhex baxdaa wuxuu fuulay buur dhaladeed baa guri looga dhisay addoommo badan iyo xaasas badan buu lahaa tii uu ugu jeclaa buu yidhi hala ii keeno cuntooyinkii kala duwanaa iyo cabitaanadii kala duwanaa ee ugu jeclaana hala ii keena buuri halkaasaa loogu keenay qof bini aadan ayaanu ii soo gelin buuri wixii buu isku habaysta gabadhii ugu jeclaa iyo cuntadii ugu jeclaa iyo qof bini aadan oo aan u soo gelay buurta dusheedii iyo hawadii iyo laydhii ay ku dhacayso wuxuu doonay maalinkaa labadeeda gelin oo halkaa ku qaato waxay yidhaahdeen markay dhowr saacadood inantii ay u heesaysay macmacaanadii iyo hawlihii ay meel fiican u marayaan baa leeb meeluu ka yimi aan la garanayn waxa weeye inantii uu dhuunta kaga dhacay dabeedna hortiisii bay ku dhacday
waxa ilaahay uu tusay isagu wuxuu doonay adduunyadan kamaal iyo dhamaystiran nicmo kii ugu dambeeyay inuu helo sidaas uu maskaxda geliyay ilaahayna awoodiisa wuxuu tusay xaaladii ugu cuslayd iyo murugadii ugu cuslayd in isla ilbriqsigiiba ilaahay inuu geliyo sikina gudahood baa farxadiisu waxay isu badashay qofkii uu ugu jeclaa walibana isagoo indhaha ku hayo eegaya inay waxa weeye hortiisa naftu kaga baxdo ayaa Allah subhanahu wa ta'ala u tusay walaalayaal waxaan kusoo gabagabaynayaa mar haddii aynu dareenno inaynu sidaa ducafo u nahay maxaynu awood ku helaynaa awooddu waxay ku kooban tahay ilaahay daciifka inaga dhigay oo doonaya isaga inaynu awoodda ka helno inaynu Allah subhanahu wa ta'ala aynu qalbigeena ku xidhno acmaasha qalbiga ee kala duwan in aad iyo aad loogu dadaalo rumaynta iyo iimaanka in la xoojiyo ilaahay la rumaynayo xusida ilaahay la xusayo istighfaarta adkaarta kala duwan isticaadada ilaahay laga magan galaya waxyaabaha dacfiga keenaya ee nabigu calayhi salaatu wasalaam ina faray allahumma inni a'uudu bika min al-'ajzi wal-kasal wa a'uudu bika min al-hammi wal-hazan wa a'uudu bika min al-jubni wal-bukhl wa a'uudu bika min ghalabati ad-dayn wa qahri ar-rijal wa a'uudu bika min an uradda ila ardhil al-'umr ilaahay waxaan ka magan galaya bukhliga bakhilnimada ilaahay waxaan ka magan galaya fulaynimada caajisnimada ilaahay waxaan ka magan galaya rag ii awood sheegto idirqiya oo daciif iga dhiga ilaahay waxaan ka magan galaya dayn iga qaalib noqoto iyo daciifisa ilaahay waxaan ka magan galaya waxa weeye ardalul umr xilliga asaaska inaan gaaro waxyaabaha soo dhanba ilaahay ka magan galaya isticaadada iyo istighfaarta iyo adkaarta la badsado waxa kamida taqwa Allah jalla jalaluhu ومن يتق الله يجعل له مخرجا الله سبحانه وتعالى إلا عبصره وحاول لقيه ليا الاستعانة بالله والتوكل عليه وحكستوات قبر السيله ناد لكاشته لا حول ولا قوة إلا بالله التوكل على الله وحكستوات قبريس أذو أسبابتي إذا هيا إن الله سبحانه وتعالى لكاشته وإلهي أذو تلسارته ومن يتوكل على الله فهو حسبه نك إلهي تلصارته إلهي باكو فيرن وحكمده وحيابها ود لو هليو الصلاة إن وحوي صلاة لو ددالو كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر أفزع إلى الصلاة نبي هدول عليس تريمو حق الصلاة ده أرجع وودك دقي النبي عليه الصلاة والسلام بلال الصلاة النوغ راحة وماشى اللي قلنا الصنايو النفط حسن لونية أودي كيليسو صدقات كي الزكدي الله بحيو أيوقفك أود وحوي كهلية الدعاء وأعجز الناس من عجز عن الدعاء قفك إلهي نبريو أود إلهي نويديستو ضعف يتقدر لذي نكسر إلهي نبريو ضد وحا أود ضعيف سنة وعاج سيسا قفك أودي ويا الله سبحانه وتعالى نبريو وحكمل أود لوهلية dadka jilicsan ee taagta daran in waxa weeye loo naxariisto wahal tunsaruna wa turzaquna illa bi du'afaikum miya laydinku hiilinaya oo laydinku arsaaqaya dadka jilicsan ee aad taageeraysan mooyaane wax kale as-suhbatu salihah wal bi'atu salihah jawiga wanaagsan iyo dadka wanaagsan ee la saaxiibayo iyadana awood baa laga helayaa dad badan oo balwadu ay aafaysay marka la yiraahdo iska daa ee uu iska daayo laba saaxiib oo cuna markuu la fariisto ayuu oranayaa bahalkiiba igu dhaqaajiyeen qiiqiiba igu shideen wixiiba igu hor cuneen dabeedna dib uu bilaabaya haddaad doonayso inaad awood yeelato ilaahayna uu ku cizeeyo ku karaameeyo waxaad ku dadaashaa goobaha wanaagsan iyo dadka wanaagsan inaad u badato waxa weeye aad iyo aad ugu dadaal waxa kamid ah hijra meelaha xumaanta laga hayo inaad ka fogaato oo aadan isdhiibin oo aad ka baxdo waxyaabaha wadda lagu helayo waxa kamid ah ee dacfiga laga baxayo al-ijtimaa' wa nabdh al-furqa
dadku inay midoobaan oo iskaashadaan oo waxyaabaha kala kaxaynaya oo qabyaaladu ay kow ka tahay in laga fogaado oo dadku islaamnimo iyo iimaan iyo khayr iyo wanaag ay waxa weeye ku midoobaan oo waxa weeye kala tagga iyo qabyaalada iyo yasida iyo nasabka in la duro iyo waxyaabaha la midka in laga fogaado haddii dee xaalku uu gaadhana janno uu gaadhana waxa weeye waa mid ka sii daran ninbaa waxaa la yidhi war ma jeceshaa ilaahay inuu jannada ku geliyo laakiin qabiilka aayastaan ee aad hoos u dhigtaan dhalashadeeda lagu siiyo ma jeclaan lahayn isagu wuxuu isku tirinayaa qabiil wax isbidaya marka qabiilkii uu iska bidayay baa la yidhi haddii qabiilka lagaa dhigo jannadana lagu siiyo lagugu bushaareeyo ma jeclaan lahayn waxa ku dhacday beerka jecel xaydha jecel jannana waa doonaya magaca qabiilkaana inuu maqla dooni maayo muxuu ku jawaabay wuxuu yidhi haa waan jeclaan lahaa laakiin bishart haddaanay ahluljannuhu iyo ogaani ahluljannuhu haddaanay ogaani qabyaalada ila la dagaalamo waxa ka mid ah asbaabta ka mid ah azawaaj waxaynu soo tilmaanay dacfiga ugu badan ee dadka ku imanaya xagga dumarka inuu ka imanayo waxyaabaha lagu daweynayo waxa ka mid ah azawaaj dhalinyaradu inay guursadaan oo guurka ay ku dadaalaan qodobka ugu dambeeya al-i'tizaazu bil-islaam wal-thiqatu bih wal-thiqatu bi nasr Allah jalla jalaaluhu qofku wuxuu cizi iyo sharaf iyo awood ku dareemaya inuu sharciga alle iyo diinta alle iyada uu ku faano oo iyada uu ku qanco oo uu aamino wal-caaqibatu liman ittaqa wal-caaqibatu lilmuttaqiin waxa weeye alaa ina nasra allahi qariib mar hadduu diinta alle iyo xaqa uu ku taagan yahay in alle subxaanahu wa tacaala uu hiilinayo waxaanu ku soo gabagabaynaynaa oo awood ummaddu ay ka helaysaa sharaf iyo cizina ay ku helaysaa adduunya aakhiro al-akhdu biasbaabi alquwa asbaabta awoodda keenaysee maadigaana in lagu dadaalo oo waxa weeye culumtii maadiga ahayd hadday tahay tii ciidanka iyo haddii ay tahay dhaqaalaha iyo haddii ay tahay farsamada iyo warshadaha iyo waxyaabaha la midka ah culumta noocaasay ummaduhu adduunyada ay ku horumaraan iyadana in lagu dadaalo oo waxa weeye dad ay u soo baxaan si waxa weeye la isu dhammaystiro taa ugama jeedno sida dadka qaar ay aaminsan yihiin in lagaga mashquulo cilmigii diiniga oo qofna aanu ka maarmayn laakiin in la helo culumta noocaasana dadku xeel dheeraanaya dadka qaar waxay yidhaahdaan baraha bulshadana waa lagu arkaan u malaynaya wuxuu soo dhigayaa 50 culimmada ka mida Soomaaliyeed oo dadka la dhagaysta dabeedna commentigu ka bixinaya wuxuu oranayaa waxaasoo dadoo la dhagaysto maanta hadday maadi inoo baran lahaayeen meel fiican baynu gaari lahayn waa laga helayaa baraha bulshada waxaanaynu ognahay kunka secondary-ga inooga soo baxa imisa xagga shareecada u bayda ma xagga maadiga loo badayay imisa xagga shareecada xaalkeenu waynu ognahay xagga maadigeenu u badannahay laakiin waa maadi aynaan ku intifaacin wey waxaan kaga baxayaa nin culimmada islaamka ka mid a ayaa waxaa loo yimi isagoo saxiixulbukhaari dhigaya ayaa loo yimi nin dadka aynu sheegaynaa baa u yimi wuxuu ihi shiikh intaad bukhaari iyo ku mashquulsanayd xadaanaa fulaan ayaa gaaladii waxay gaadheen buui dayaxay gaadheenoo ku degeen buui wuxuu ihi adigu dayaxa ma gaadhay buu maya wuxuu ihi adigu bukhaarina ma haysid dayaxna maad gaadhin midun ka soo baxa buu marka waxaa inugu jira dad noocaasa oo u malaynaya daciifnimada dadkani ay ku jiraan in xagga diinta looga yimi xaqiiqaduna waxay tahay dacfigeennii ilaahay uu nagu abuuray waxaa dacfi ugu sii daray waxa weeye diintaas inta aynu ka jeesannay ee aynu ka tagnay ayaa dacfigaasina waxa weeye inooga yimi ilaahay waxaynu ka baryaynaa dacfigeenna inuu quweeyo in alle subxaanahu wa tacaala xaalkeennana wanaajiyo khayrna alle subxaanahu wa tacaala iyo cizi iyo badhaadhe
ummadda alla subxaanahu wa tacaala inuu gaadhsiiyo inuu alla subxaanahu wa tacaala acmaasha wanaagsan aynu samaynayno ilahay inuu naga aqbalo towfiiqda alla subxaanahu wa tacaala inuu waafajiyo alla subxaanahu wa tacaala khaatimada khayr noogu khatimo waakhiru dacwaana alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin sala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed